ma cabto shiishad cadow ay gacanta ugu jirtaa maxaa la dhahay arintaas ka hadashay marka arinta la yaab kale wax laga xumaada ah ayaa ah in dad waaweyn waxa waaye hooyadii dhashay gabadha xiran oo Liibiya ku xiran waaye Soomaalida waxaan u sheegaa ninka beenta sheegay oo aan Ilaahay ka baqayn oo Ilaahay ka cabsanayn markaan indha xiranka oo indhaha iga xiraayeen oo waxba ogeyn oo waxba meelan aado aqoon oo meelan u baxaan aqoon inta u jiray xagow aadi mi arag miya yaa hadduu wax ogaay markaas muxuu u sheegi waay Ilaahay inta ka cabsado qofka aan Ilaahay ka cabsanayn Ilaahay inta ka cabsado waa bil Ramadaan waa maalin adduunyo birina qabriga ka horeeyo oo qabriga u tagaa marka waxa waa Ilaahay ka baqo in la xisaabinaana ha ogaado oo la xisaabi doono oo la xisaabinayo ha ogaado aniga gabadhayda waaga Liibiya ku jirtaa kama aysan bixin alxamdulillah shukr rabbil alamin insha Allah way ka bixi doontaa biidnillaahi kariin idanka Ilaahay oo idankayga ahayn way ka bixi doontaa Soomaalida walaalahayo waxaan u sheegaa aniga dhibaatadii aan shal u soo galay waa la ogaay aniga dhibaatada shal i haysan ninkaas ila ma qaybsan aniga iyadoo ummad islaameed ay ila qaybsatay oo dhalinyaro islaameed ay ii gurmatay oo rag islaameed ila orday inuu maanta hadana yiraaho wax balwad laho baqti cunaaya inuu ii soo saaro oo yiraaho waxaas baqtiga cunaaya gabarteedii hadda gabarteedii ay wax cunay gabar iska day wiil cunaa xitaa wiilkaygu xitaa ma cuno anaga wax cunana ma naqaan ilaahayna ma baro dad culumahana dad Ilaahay ka baqaayana من هنا أنا وجهي وحن أفري والحجاب نقاب كسر وفري وأمده حكو أركته لكن أنا وجهي النقاب ما صارتا وحن أفري أمده اللي درت أمده حكو أركته يا أمده الصوماليات وحن كبريا ونشجع ونمده أجيسينا يا وأمده إسلام كأن أجيسينا إنه نكاسو هاي nin khadcu dariiqaha kale oo yahay oo isbaaro u dhigtay shabakada ana been iga sheegay oo Facebook ku dheelay oo Facebook gabadheeda ku dheelay oo Facebook umadii ii dhigtay oo ku dheelay oo soo dhigay naaqiiq jiidayda balaayo ka tultulihaydo ee soo dhigay beenta iga sheegay Ilaahay ka cabso oo ma Ilaahayna ka cabso oo ma ee umada Allah ka dhaxbiyo kaasoo kale umada baalkii umada dhibaayo kale kaasoo kale umada dhibaa Allah ka dhaxbiyo Ilaahay ka dhaxbiyo kulantu waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta joogteen ay soo boonoo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halka si toos ah oo daawanaysaan waa badbaadasho fadlan subscribe sa channelkan haddii aad ku cusub tahay like share comment waa laga doonayaa haylowin marka subscribe aad saarto inaad gambaleelka furto sababtoo ah waa muhiim gambaleelkana furto haylowin subscribe dhacay u sii gambaleelkan furo muuqaalkana daawo share gareey like comment ka soo bixi waa maasantahay okay maanta muuqaal ayaan wada muuqaalkaas wuxuu ku saabsan yahay waad ogtiin maalin dhawaa waxa ka soo hadlay muuqaal gabar Soomaaliyeed oo ka dhibaataysan saxaraha Liibiya waa halka dhalinyaradeena galaafatay mar walba u dhibaateeyo ma aha gabadhan kaliya kumanaan dhalinyaro ah Soomaaliyeed ayaa sanad kasta lagu dhibaateeyaa okay gabadhan markii muuqaal laga soo duubay waxa jirta sidoo kale hooyadeed in ay wareysi siisi liicato kadib waxa dhacday asxaab ay oo kamid ah abaha iyo wiil kale in ay soo qaataan video gabar shiishid cabaysa ay dhahan gabadhan waatana way ku qaraabata amal okay mar labaad waxa soo hadashay hooyadii dhashay gabadha oo arintaas aad u murugaysan maadaama gabadheeda habeen walba fiidowgeeda loo soo diray iyadoo dhibaatayna okay bal aan daawana maamada Soomaaliyeed gabadheedana ay dhibaataysan tahay maadaama gabadheeda ay dhibaato haysato iyadana mid lamid ah dhibaatada gabadha haysata mid ka daran ah sababtoo ah waalid ubadkiisa dhibaatayna waxa ubadku ku dhacaa wax ka darna asku dhaca macna Soomaalida walaalahayo waxaan u sheegaa aniga dhibaatadii aan shal u soo galay waa la ogaay aniga dhibaatada shal i haysan ninkaas ila ma qaybsan
aniga iyadoo ummad islaameed ay ila qaybsatay oo dhalinyaro islaameed ay ii gurmatay oo rag islaameed ila orday inuu maanta haddana yiraaho wax balwad lahoo bakti cunaya inuu ii soo saaro oo yiraaho waxaas baktiga cunaya gabarteedii hadda gabarteedii ay wax cunee gabar iska day wiil cuno xitaa wiilkaygu xitaa ma cuno anaga wax cunana ma naqaan ilaahayna ma baro waad aragtaan hooyada Soomaaliyeed way soo hadashay waxa ay leedahay gabadhayda ma cabto shiishad cadow ay gacanta ugu jirtaa maxaa la dhahay arintaas ka hadashay marka arinta la yaab kale wax laga xumaada ayaa in dad waaweyn media social media sumcad ku dhaxlahaa laga yaqaanay in ay dhahaan ama ay hor istaagaan gabadha Soomaaliyeed wixii loo sameeyay waa ogtihiin muuqaalkaas dadka qaar markay ay daawadaan oo gabadhaas wax ku sadaqaysan lahaa lacag u dhiibi lahaa si halkaas loogu badbaadiyo way la laabanayaan sababtoo shaki ayaa qofka bini'aadamka galaa marka ummadda in shaki la geliyo oo gargaarka u sameey lahayd gabadhaas masaakiinta halkaas ku dhibaataysan iyo hooyadan sidaan u murugaysan qofkii ka hor istaagay bal ka war xaaladiisa marka nimiyo bir Ramadan ayaa lagu jiraa bil barakaysan ayaa lagu jiraa bishii la cibaadaysan lahay isku gurmi lahay khayrka isku fidi lahay la garab istaag lahay ayaa lagu jiraa hadii marka bishaas isku sameeyo ka waran waxyaabo aan fiicnayn dad culumahana dad ilaahay ka baqayana manhin aniga wajigayga waxaan u furay oo xijaab niqaabkii saaray uga furay waa ummadu ha ku aragto laakiin aniga wajigayga niqaaman saartaa waxaan uga furay ummadu alla darta ummadu ha ku aragto arrinka sidoo ku socday alxamdulillah Soomaalidu dhan hooyo way wada wacayeen way la hadlayeen qaarkood way u duceynayeen waxa dhacday muddo kadib ayaama kadib waxaan Facebook ku arkay aan YouTube ka dhahay wiil lagu magacaabo Maxamed Buskud waxa la soo shirgay video gabar shishad cabaysa oo wuxuu soo saaray gabadhii xabsiga ku jirtay sidaad ogeedin idinkaga ilmeysiis waa sax wallahi waa naga ilmeysiis muuqaalkaas waa naga ilmeeyay waan ka murugoonay waa wax aad loogu xumaada in gabar Soomaaliyeed walaasha amal waxba dhaamin marka la dhibaatayna waa murugoonaysa indhaha inaad ku istaagaysaa qof kasta oo wax haysta awoodo inuu garab istaagana qasab ayay ku tahay inuu gabadhaas gargaar u fidiyo cidkii maxaa la u fidin karin ku caawiso sababtoo ma hadii muuqaalkaas aad baahayso gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed waa loo gurmanayaa garab istaag waaye idin baahnay walaashin wuxuu ku yiri 4 sano ka hor ay xabsiga Liibiya ka soo baxday haddana Yurub ay shiishad ku cabtaa wayna tumataa hooyadu waa aragteen wajigeeda aragteen way ooneys ilaaha maciinta iska leh maanta ummadda Soomaaliyeed u fadhiya ay ku heysay qof baahidaas sheeganay ma jirto Soomaaliyeedna waan adagnahay waad aragteen Maxamed Buskud waan arkay fiidiyogiis aadan uga xanaaq wadan shisheeyo jooga waxaan dhahay maxaa ka qaldan lambara meesha ku qoran waa lambarkii hooyada inuu wareesto muxuu la hadli waay comment ya u qoray waa kana arkay waxaan dhahay walaalkay ma ahayn fiidiyowga inaad soo dhigtaan dhahay waxaadan hubsanaa ku dhaqaaq waxaa fiicneedaan dhahay in lambarka ku qoran Munasir page-kiisa Ali Aadan Muumin page-kiisa aniga page-kayga macallaa YouTube-ka soo dhigay lambarka ku qoran waa hal lambar inaa wacdo waa la hadasho oo hooyada wareysato wuxuu ii soo qoray oo jeedin qoraalkiisa markuu leeyahay dad ku kalsoon ayaa ii soo qoray war hooyadii dhashay oo maama oo da nambarkeeda ayaa meesha saaran ma wacdid xaqiiqo ka weyn ma jirtaba sababtoo dad kalsoon tahay xaqiiqo ka weyn gabadha hooyadeed oo da'dan in la hadasho oo aad wax ka hubsato xaqiiqada ka weyn xagee jirta bal fiiri hooyo da'daas jirto gabadheeda ay dhibaataysan tahay in la hadasho xaqiiqada iyada aad ka ogaato bal xaqiiqo ka weyn xagee jirta marka hadii dulmi aysan jirin wuxuu dhahay dad aan ku kalsoonahay ii soo sheegeen dib aan ugu cidoona sidoo kale waxa aad uga sii naxay oo igu qasbay in aan fiidiyogan caaw u soo duubo anigoo rabin Maxamed Buskudkaas waxba aan u duubeenin waani xasaaran aan lahayn hadalkiisa iyo wax uu yahay aadan kala aqoonayso u hadlay waxaan arkay nin lagu magacaabo abaha si fiican wada taqaanin idin ma sheegay isla sawirkiisa saarna Maxamed Buskud gabadh u soo sameeyay
ayuu soo qaatay oo shiishada cabaysa wuuna ka hadlay wuxuu dhaawaa been sax ma ahan lambarka waa lagu qaraabanayaa dada baahi heesa baahi anaas waxaan la siiyo oo beentood ay tahay laftirkood baahi leehaysa waa kana wuxuu leeyahay taas hore uu hadlay arinta abaha horta abaha waa samafale lacag badan ayaa loo soo dhiibaa dadkana uu gaarsiiyaa aniga muduraay oo ma dhahay maxaa lahay wuxuu ismeeyay arintan in asaga la soo marsiiyo ayuu rabay ma dhahay laakiin arintaas waa ku fududaatay abaha aad ay ugu fududaatay waxaan rajeynaa in raaligelin buuxda aad ka bixi doonto gabadhaasna aad maxaa lahay iyo hooyada Soomaaliyeed aad raaligelin sii doonto ugu yaraan sababtoo ah qalbiga ayaad ka jibiseen hooyadii Soomaaliyeed gabadhana waa la gaarsiiyay sidoo kale qalbiga ayaa ka jibiseen meesha ay ku sugaysa gargaar meesha ay ku sugaysa in loo gurmada meesha ay ku sugaysa niyad dhis qalbiga ayaa laga jibiyay dadka meeshooda ku soo sheergareeyay lambarka ku qoranna dadka meesha ku soo sheergareeyay maamada baahi ma haysa ayaga baahi haysa oo anaga baahina ma haysa alxamdulillah umadeena xanuunsan wax waa ku caawinaa sheega meen walaalkeeyo aniga wadanka waa ka maqanahay labadaas wariyina wadanka way ka maqan yihiin abaha waxa fiicneed Soomaaliya joogta waa lagu wada yaqaana saa sheegta dadka dumacinta lambarkaagana ku qorataa walaalkeeyo markaan leedahay umada Soomaaliyeed qofkaana xanuunsan lambarkaaga ku qorataa iyo akoonkaaga aad ku qorataa ma fahamtay saaxiibkeeyo oo qadiijo afgooy ee jirta afgooy degantahay subax alla keeno way soo bixi jirtay muqdisho imaan jirtay magaalada ay imaan jirtay way rafaadi jirtay walaalkeeyo lambarkeeda page walba ku qornaa saddexdiinaba lambara kala duwan maana ku soo qoran waxaan nahay dad masaakiin ah brother oo qofka bilaadanka u naxa waan ka damqan gabadhaas walaasheena inaana ka aamusnana qalad ay nagu tahay way nagu aamintay abaha waad awooday 16 ina ku subato ina hooy qadiijo lambarkeeda aad wacad aad xaqiijiso waa la hadash hooy maxaa ka qaldan warka ma beenba maswaarun ma lagu qaraabanaya ina maamada dhahdo muqdisho imaanaysa subax alla keeno walaalkii waa la fadhiisan kartay baabuur aan leedahay la dhahay bajaaja qaada kartay kaamirada la kala bixi kartay ummada Soomaaliyeed dhinaca uga tuugi kartay dhihi jirtay hooyadan Soomaaliyeed caawimaad u baahantay caawiyo walaalkeeyo ana ugu xumahay waxaan rabaa ina wax idin kula tuso ina wax idin ku dheeraad hadalkayga marrib aabahana aad ugu carooday maxan buskuna aadan ugu carooday ayadoo bil Ramadaan lagu jiro in hooyo Soomaaliyeed habeen madow ee ku qasban in ay video u soo duubto nidaamka ay wadatan ay u dhigto horaan way in kala hadashay hooyada mar walba nidaam wax ku duubtaa laakiin way iska dhigtay habeen madow video ayaan ku qasbo hooyo qadiijo oo aan dhahay gabadhaadi waa laga been sheegaya wayna gaartay gabadhi xabsiga ku jirta waayo waxa si gooni ah u la xiriirta Salma oo kaalin weyn ka qaadatay ayadoo xabsiga ku jirta in ay la xiriirto gabadhaas Dahraan Caliya way la sheekaysataa niyadda ay u dejisaa waxaan u sheegtay in laga been abuurtay oo sawirkeeda la saaray ayadoo shiishad cabaysa aadi oo sacaaw aadi umrugeynaysa caaw cadowga heesto waxa ugu daran kan irsaaqadii maanta umada Soomaaliyeed hooyo qadiis sax waay sababtoo ah dadkaas haystaan gabadha kaliya waxay u baahan yihiin waa in lacag la siiyo marka haddii gabadha ay haystaan ay lacag haysan hooyada lacag haysan waalidiinta ay lacag haysan oo ummadda Soomaaliyeed arinta loo bandhigay oo ummadii laga hor istaagay bal gabadha marka bal gabadha xaaladaas waa arin aad loo xumaad arintaas arin fiican maahan waa dadka qaar aad ay u xumaadeen walaalka hadaan wax u tiri karin waa laga aamusaa ugu dhiibay gabadhaas ninkii ka hor istaagay taas ugu dar waxaan rabaa walaalkay Munasar in aad hal mar ila aragtaan kaalinta uu ku lahaa gabadhan caawimadeeda ma maasantiin
وما صنتها ولالكي ليبان آدن ليعاتو أبها إنو دور هاي الصوماليات أو دباتيسن أو المانيس محاكو كلي فكرة محاكو كلي فكرة جبر ولاشيس أو كلاء أو وحرن نن أرحم درن وكما سنتين مقال كان داوسي وحواي الدنيا سيدا إسكاه ولا جود بدونا إن شاء الله قبل أن نحارجينا هالكاس إن لقصو صار دونا إن شاء الله ولا رهيت سومالي يقول مرا ضد موينيسة سومالي وحواي أهرنتان عمل مركز اعتماده ويسقرب استكتا ونسكن قانا إن شاء الله وحارجينا سيدا ورخصيها بدن هالكاس إن لقصو صار دونا إلهي أيانا قرب سي دونا ومد سوماليات meel kasta ay ku dhibaataysiin waxaan leenahay dhibaatada Ilaahay ka saaro sababtoo ah sanad kasta boqolaal dhalinyaro ah ayaa halkaas noogu baabaa qaar badda ay ku dhintaan qaarna saxaraha ayaa ugu dhibaateeya iyagoo saxaraha lagu dhibaatay intaas la marsii ayaa haddana badda inta galaan ay badda ku sii dhamaadaan intaas maxaa u sabab ah burburkii muddadii 30 sano ahayd ee soo dhaafay nagu habsaday arjayna muuqaalkan si share gali doontaan asxaabta la sii wadaagi doontaan si cid kasta oo maxaa la dhahay ka damqanaysa gabadhan ay gurmad ugu fidaan insha Allah waad ku mahadsantiin muuqaalkan daawashadiisa waa walaalkeen badbaadin leh sidaas iyo nabadgelyo